كلهم وعن ونفسي إن هذه المرة الواجبتان وصل معنا برامج كارا وأنا مطلق من حالة ستطلع معنا برامج كاس وحاولي هو حبيبه حاجة علي هو يسمى عليين حاجة بنوعها من كده ومدو بشي أكتوبر إلى هذا مثلا إلى كذا على المتفجات يكون مجالات المدرسة ومعتدى أي موضوع يجري ويل كذا وصوماليات أنتوا وإيسي وكذا راتي إلى أمر كده ويل كذي ومكستي إنه الحرب لا هذا وكذا هاي معمول وإلا والعسل طايرين تاس وحجعلات إن مقلبيان يسوي استهتر أيضا وهبين إيمان كسي حويسي حالة دويل كذا وإيسن حركين مقال مكليرة ومقال إن تلفون من مكان كذا حديثه تلفون قاسوا عن بدنين مركو حجعل استقيم هو حبيبه حجعل مد الصومال كسر بدي حالة دويل كواحد هو يستعين لعق قيمة المعمر إنه شيء منطق ومن هاي العقد كان مامو هديك الملكة ودرنا يا مامو ومامو إسكندرية مركب في حالة دينا ما أودو إن العقد فيما أصلا أما عدد أصلا بسوا مركب حاجة على استيت مقلبية بسوا استكتر بسوا بني مدة صوماليات المسلمين عند أربعة وأربعة وكتر هذا دولة هذا من عصر عند أربعة وصوماليات وأربعة مام حبيبه حاج علي مقلبية بسوا بالحالات ده يصير ويجران بسوا الصوماليات جارهان أمة المسلمين تقول صوبنا. محمد الشوق على الشعب. مصطفى مركب وشيل الجلاء هو الإمام. موت البجاج هو اللي. محاكم صدر مركب. ميلو على سكوتي كدي محل عوائل شوف يعني اسبتال كيل جاي شوف يعني لعقد إيه صوي وعلى رقم $1 نعم وطبعا ما هو القسم وين أحد أصلاً تقدر الصيام خلوك من دولة $2 هاي وقعدنا أيام مادام ممكن جد نقول شيء حال كله أن هنا $2 ملوى. شوف يعني. أو ملك هذه على عكس لكن ملك أركز dadka ala kaashatay oo ma jiraan wiilka iyo adiga inay dhaxyo xaaladaasi hoos u xalay fiish taarako muu tagtay oo wiilka ma booqatay mase uguma ogolo uguma ogolo inaad tagto bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda muslimiinta waa ummad isku gargaarto waa ummad iscaawiso xilliyada adag la iska muujiso oo dad isku gargaaro oo aan isku fiirsanin dhibka la u jeedino way xabiibo xaaji cali waxay ni sheegtay in wiilkeeda Mustafa Maxamed Maxamuud uu ku xiran yahay fiish traafiko xaalad adag ayuu ku jiraa muddo 3 bilood meeshan arkin wiilkeeda marka laga reebo in taleefanka oo kaliya kala hadasho xilliyada qaar ma badno مدرم كده هو الصوماليات وحكوا كلفة إنه قلبها إن شو يستقبل أي بالشو شو يستقبل عندنا يكعصوا إني عاويان طبعا معها وحفود هذا إسكقياس أنا مجعلها هذه المقال إنه شو يستقبل وهذا هل يعاون سفود أدلو ضميرت على مخلصين لكن حاجر واحد ريحه ما مضى أما هو حبيب حاج علي وده waxaa ka weyn ayaa kuristeen hortag walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed cid walba oo wax u qaban karto waxa laga yaabaa qof muxsina oo dadka u gargaaro laakiin muuqaalkaada aan arkin dibkaada aan dareemin inuu jiro bal markaan muuqaalkaada u baahi waxaan ala ka rajaynaynaa inuu muuqaalkan markay daawadaan arkaan way xabiibo xaaji cali كسر فضل عليان من بسيلة أو أخصيها بدن أي سن مقالة كلين إن داودان كأن
ay shaar gareeyaan laagta siiyaan si adigu haddaan caamilayna sadaqeed ugu tahay inaad daawato waxaa kaloo sadaqa u ah inaad shaar gareyso oo qof muxsin oo walaalka ah oo kusoo caabiyo hooyo xabiibo xaaji cali wiilkeeda mustafa maxamed maxamuud ah uu ku xinayaa muddo 3 bilood 3 bilood iska dhaaf caawa keliya hooyo markii ay kaa maqnaato aad ka maqnaato maxaad u malaynaysaa waxa ay dareemayso ama daqiiqada taleefonka aad ka qaban waxaad dareemi kara qof hooya waxaad dareemi kara qof aabbaa waxaad dareemi kara qof caruur ay guri ku jirto oo keliya ayaa dareemi karo maxaan in leeyahay ummadda soomaaliyeed anigu iniguma ogi dad isxaasido inigugu ogi dad qof dhiban meel cidla uga tago waxaan inigu ogahay oo aan inigu aqaana oo aan inigu arkay oo aan inigu maqlay in aad tihiin dad gargaarayaala oo aan dhibka isku daawan oo isku naxariisto oo ilaahay wuxuu yidhi markay dadka dhulka jooga isku naxariistaan ayaa ana samad ugu naxariisanaya waa sababta roobka ugu soo da-ayo roobka wuxuu ku imaadaa inta badan waa arka masaajidka marka la joogo oo xiliyaha kuleelaha ummadda waxay sameeyaan markay qoraxda aad u kulushay roobka waayo wax roobtuug la salaada roobtuug la sameeyaa salaada maxaa loo dukadaa maxaa loo sameeyaa ilaahay loo barya ilaahay naxariistiisa in lowlaa waxaa laga yaabaa dadka masaajidka joogo haddii qaarkiin aan ducada laga aqbalayn qaar kaloo ka mid ah ducada laga aqbala sidaas darteeda u sameeya ummad muslimiin aan nahay aan isku gargaarno oo xabiibo xaaji cali wallaahi maanta wejigeeda qofka arko ayaa dareemi karo waxaa ka sii daran wax qalbigeeda ku jiro sababtoo cunug aa dhashay maanta markuu arrin waa naqaanaa dhalinyarada mootada wada maanta waxa u geystay waa shaqla-aan waa duruuf waa dhaqaalo xumo waa xaalad adagay ku jiraan iska soo qaad adiga guriga jooga jaamacadda dhameeyey wiilii gabar hooyo aabbo wiilkaada maanta markuu jaamacadda dhameeyey markaad u weyso wax uu ku shaqaysto waxaad kugu kalifay wiilkaada inaad shaqaraayis ku samayso hooyada waxaa ku kalifay wiilkeeda inay shaqa mooto ama ha kiriha u ahaato ama miduu leeyaha u ahaato wuxuu u soo dhiciyaa biilka waalidka wuxuu soo dhacsadaa biilka nafsidiisa iyo reerkiisa iyo caruurtiisa marka qof intaas xil haayo maanta 3 bilood xiran reerkii iyo oo ahay asiga xaafila hadduu yahay iyo hadduusan ahayn hooyadiis walaalihiis naftiisa wax walbo ayaa laga rabaa asiga wax walbo iska rabaa isqiyaas oo xabiibo waxaan leenahay maxaad ka codsanaysaa ummadda soomaaliyeed adigoo mar labaad muuqaalbaahiyaha hortaagan aad aan waxunahay in muuqaalka aad soo istaagto bulsho soomaaliyeed aa wax ka codsato dhibka jira oo ka weyn oo ku hayo aan ogahay inuu kuu kalifno muuqaalka amaan soo istaagto oo xabiibo waxaan ka codsanayna inaad muuqaalka ummadda soomaaliyeed la hadasho mar labaad marka kalena waxaan ka codsanaya lambarka lagu soo tabarucayo inaad afkaaga noo sheegto iyo magacaaga saddexaad furaha 7 waayo eber labo 40 35 marka lagu celi waayo furaha 7 eber labo 40 35 hooyo xabiibo xaaji cali ayaa wada soma lambarkaas aad kusoo hagaajin kartaa hooyo waxaan rajeynaynaa oo aan ku kalsoonahay ummadda muslimiinta inay ku caawin doonaan 2,000 iyo ka badan ayaan caawinaa oo aan samaynaa oo aan isku tabarucnaa marka intaas kulleyba qofka haysto maanta kumaaha laakiin qofkaan haysanin oo hooyo xabiibo xaaji cali dareemi kara xanuunka haayo waxaan leenahay usoo gargaar aakhiraa bedelkeeda heli doontaa waa adduun waxa la joogo waa laga tagi doonaa isku gargaara oo isku naxariista mar walba si alla naxariistiisa noogu soo degto waa xabiibo waa maasan tahay